بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay aqalka baarlamaanka Ingiriiska shirkaas oo ay soo qaban qaabiyeen saaxiibada Soomaaliland ee ku jira baarlamaanka Ingiriiska oo ay ka soo qayb gashay jaariyadda iyo saaxiibo kale ka soo qayb galeen shirkaas waxaan kaga xog waramay xaaladda Soomaaliland khaasatan doorashooyinkii iyo sidee u dhacday waxaan kaloo kaga waramay maxay yiraahdeen arrimaha runtii hortaagan imika iyo waxyaabaha u mudan dawladda imika jirta ee loo baahan yahay in laga hawlgalo si wanaagsan baan ugu dhacay waa xubnaha saaxiibada Soomaaliland oo ka socda mataqaana axsaabta oo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta sharaf ah inaan ka qayb galay isagoo waftiga Soomaaliland uu hogaaminayo Dr. Saad Ali Shire oo la kulanay all parliamentary group ama sida uu sheegay Dr. Saad xubno ka tirsan xisbiyada UK waxa uu wasiirku siiyay warbixin ku saabsan sidii doorashooyinka u dhaceen iyo halka Soomaaliland xaaladeedu taagan tahay waxaana ka muuqday dadka la kulanay saaxiibada Soomaaliland iyo memberska kale baarlamaanka inay aad ugu faraxsan yihiin jidka ay hayso Soomaaliland ayna dhiiri gelin doonaan adduunyada iyo dadka kale sidii arrimaha Soomaaliland qadiyada aqoonsiga loo eegi lahaa waxa kale oo wasiirku aad ugu nuuxnuuxsaday in wax badan laga qabto horumarka wadanka maadaama wadankeenu wadan stable yahay wallahi shirkan wuxuu ahaa shir muhiim ah oo aad qiimo weyn ugu leh Soomaaliland waxaanu aad ugu faraxsanahay oo aanu aad ugu ambalyeynaa wasiirka arrimaha dibadda Saad Ali Shire tafaasiilihii dhaadheera ee uu ka bixiyay wadanka Soomaaliland xuduudaheeda waxyaalaha badan ka socda in mandaqada doorashooyinkii sida loo qabtay yaani halkan kuma soo koobi karo wuxuu ahaa shir caalami ah oo ay ka soo qayb galeen MPO aad u far badan oo ka tirsan wadankan Great Britain